dhacay waddo waa xiray marka waddo xiray toban dhacay رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre wehliyaan wasiirka amniga qaranka Maxamed Abuukar Islow Ducaale agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo saraakiil kale xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir ayaa booqasho dhiirigelina iyo mahadcelina waxa ugu tagay ciidamada nabad sugidda qaranka oo fashiliyay laba qarax oo maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab ay doonayeen inay ku gumaadaan shacabka Soomaaliyeed kuna burburiyaan hantidooda ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo hayay xogta ku saabsan qaraxyadan ayaa ka hortagay labadan qarax oo mid ka mid ah la doonayay in lagu qarxiyo garoonka diyaaradaha ka oo lagu fashiliyay laguna dilay dhagarqabihii waday isgoys ay ku sugnaayeen ciidamada nabad sugidda halka midka kale ay cadowgu doonayeen inay ku qarxiyaan goobaha mashquulka ay ku badan yihiin shacabka Soomaaliyeed waxaana lagu qabtay meel u dhaxaysa isgoosyada Soobe iyo Banaadir balse falkaasi ay soo maleegeen waxa ka hortagay oo naftooda u huray ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa nisa kana ilaahay idin barakeeyo shaqada wadanku haysaan iyo naftiina wadanku hiimaynaysan oo ku mahadsantiin annagana raali aan idin ka nahay madaxweynahana uu soo salaamay wax walba iyo wixii xuquuqdiina wada xaq u leedihiin oo la idin siinayo insha Allah waana mahadsantiin رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhammaan ciidamadii ku sugnaa goobihii lagu fashiliyay qaraxyada waxa uu mid u gacan qaaday ciidamada isagoo u geeyay abaalmarin lacageed oo ku dhiirigelinayay maadaama ay badbaadiyeen shacab Soomaaliyeed ayna diyaar u yihiin in naftooda u huraan difaaca dalka iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha salaan iyo gaarsiiyay oo ogaayna anigana anoo ku hadlayo magaca madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan idinka mahadcelinayaa dadaalka aad muujisaan mar walba maanta geesinimadiina ayaa waxay badbaadisay naf badan marka waa ku mahadsantihiin shaqada fiican oo qaranku haysaan insha Allah waana najixi doonaa waxaan idinka rajeynayaa haddii ilaahay dadaalka aad si laba jibaartaan booqashadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xilliga dambe habeenka ugu tagay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa xambaarsanay ciidamada geesiyaasha la dareensiyo in madaxda qaranku ay garab taagan yihiin maadaama ay u taagan yihiin ama ay yihiin kuwa u soo jeeda qabow iyo kulaylba sida nabad ugu seexan lahayn Bashir Ali warbaahinta qaranka magaalada caasimadda Muqdisho.